iyo maanta oo anigoo ah Kawthar Maxamed Cabdullaahi aan idinla socodsiin doono qodobada aad ku maqli doontaanna waxa ay kala yihiin guddoonka golaha wakiilada ee Somaliland oo maanta la doortay warbixin ayaan idinkaga haynaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo waxba kama jiraan ku tilmaamay doorashadii hoggaanka gudiyada gobolada waqooyi ee Somaliland waxa aan maanta idin wargelinayaa in la baabi'iyay doorashada hoggaanka guddiga doorashada gobolada waqooyi ee horay garab A iyo garab B mid doon raba ahade isku doortaan wax la yiraahdo ma jiraan doorashadaas waxba kama jiraan madaxweyne ku-xigeenka Kenya oo loo diiday inuu u safro Uganda lagana celiyay garoonka Wilson ee Kenya dagaalo hor leh oo u dhaxeeya Soomaalida iyo Canfarta ee Itoobiya oo la soo warinayo beelo dirir ku dhexmartay degmada Doolow oo heshiiyay maxaa ka mid ah qodobada ay ku heshiiyeen qodobada lagu heshiiyey qayb hore jirtay in xabadda la joojiyo goobihii lagu dagaalamana oo shacabka qayb inta badan ka qaxeen laga qaado ciidamada qubaysan qaramada midoobay oo ka dheerisay xaaladda dadka rayidka ah ee Afghanistan wararkii ciyaaraha iyo barnaamijkii tusmada nolosha ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijkan dunida iyo maanta oo ay soo saareen Xasan Cali Geelle iyo Samiir Cabdullaahi Jaamac balse waxa intaas oo dhan ka horeynaya wararka caalamka ee BBC-da waxaana u diyaar ah Saciid Xasan Anteeno mahadsanid Kawthar qaramada midoobay ayaa sheegtay ugu yaraan in 40 shicib ah oo reer Afghanistan ah lagu dilay dagaal faraha lagu gubtay oo dhaxmaray 24 saacadood ee ugu dambeeyay ciidamada dawladda Afghanistan iyo xoogga ururka Taliban kaasoo la isku haysto gacan ku haynta xarunta gobolka Helmand kumanaan ruux ayaa ka barakacay Lashkar Gah halka dhanka kale Kandahar oo ah xarunta gobolka dariska la ah isna ay dad badan ka firxadeen jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa ayaa intaa ku dartay in Taliban weerarada dhulka ay qaadayaan iyo weerarada cirka ee ciidanka dawladda Afghanistan ay waxyeello u geysanayso dadka rayidka ah dhakhaatiirta Lashkar Gah ayaa iyana sheegay in adeegyada caafimaad ee loo baahan yahay ay awoodooda wax dhaafsan noqotay General Sami Sadat ayaa u sheegay BBC-da in guusha Taliban ay saameen aan la mahadin ku yeelan doonto amniga iyo xasiloonida dunida goobaha kale sida Kabul ayuu Dr. Weli Wullah oo la shaqeeya dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn hay'adda MSF isna dhankiisa wuxuu sheegay in dagaalada aadka u soo xoogeystay ay sababeen in shaqaalaha caafimaadku yaraadaan maadaama dadku ay ka baqayaan isu socodka magaalada gudaheeda In terms of supply we don't have any shortage xagga agabka wax dhibaato ah nagama haysto balse waxaan walaac badan ka qabnaa dhinaca shaqaalaha iyo xirfadlayaasha caafimaadka sababtoo ah shaqaalaha intooda badan guryahooda ay joogaan oo nooma yimaadaan balse shaqaalaha kuwooda hadda hosbitaalada ku sugan ee shaqeeya aad bay u daaleen oo guryahooda ma tagaan marka la eego niyad samidoodana aad bay wanaagsan tahay balse waxaan si aad ugu amaanayaa dadaalka ay la yimaadeen we appreciate their level of motivation xubno u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada ayaa ku eedeeyey madaxda dawladda Lubnaan in dambiilayaal ay u jeer dhaafayaan kuwaasoo lala xiriiriyey qaraxii dhibaatada qarada weyn geystay ee ka dhacay magaalada Beirut qaraxan ayaa waxaa ku dhintay 200 oo qof baaritaan ay sameeyeen kooxaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha oo ay ka mid tahay Human Rights Watch ayaa helay caddeemo culus kuwaasoo muujinaya in madaxda qaarkeed ee dawladda inay ogaayeen in walxo qarxa oo halis ku ah nolosha bini'aadamka ay ku xariisan yihiin bakhaarada dekada Beirut laakiin waxay si xeeladaysan u aqbaleen halista dhimashada baaritaan ay sameynayeen dawladda Lubnaan ayaa la bilaabay sanad ka hor ilaa ay haatan ma jirto mas'uuliyiin loo soo xirxiray mas'uuliyad darradii keentay qaraxii qarada weynaa ee lagu hoobtay waxaa jira warbixin sheegaysa in ugu yaraan 30 meyd ay ku soo caariyeen qaybta webiga xadka u dhaxeeya dalalka Itoobiya iyo Suudaan dad goobjoogayaal ah oo uu ka mid yahay dhakhtar ayaa sheegay in meydadka qaarkood inta xarig lagu xirxiray dabadeedna la toogtay meydadka ayaa laga helay webiga Setiid taasoo dhanka Itoobiya looga yaqaano Tekese wuxuuna ku yaalaa inta u dhaxaysa dhulka ay haatan gacanta ku hayaan xoogagga falaagada Tigreega iyo ciidamada Amxaarada ee gacan saarka leh dawladda federaalka Itoobiya qaxootiga Tigreega ee ku sugan dalka Suudaan ayaa dhawaan BBC-da u sheegay inay goobjoog u ahaayeen maleeshiyo weeraro ku qaadaya dad rayid ah kuwaasoo taageersan dawladda Itoobiya dawladda Itoobiya ayaa wax kama jiraan ku sheegtay wararka xasuuqa sheegaya ee lagu baahiyey baraha bulshada hay-adda u dooda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa ku eedeysay madaxda Sacuudiga inay qaadeen tallaabooyin ay ku cadaadinayaan mucaaradka iyagoo ku fuliyey dilal ilaa iyo bilowgii sanadkan kooxda u dooda xuquuqda bini'aadamka ayaa sheegtay inay tani toosh ku ifinayso dalkani
kadib marka uu ka dhammaado dabayaaqada sanadkan muddaxileedka uu ku hogaaminayo dalalka ku bahoobay G20 oo ah urur ay ku bahoobeen dalalka ugu tugtugtaroon dhaqaalaha dunida. waxay sheegaysaa warbixintan la soo saaray in ugu yaraan 40 ruux la dilay intii u dhexaysay bilihii January iyo ilaa iyo July ee sanadkan, taasoo ka badan intii la dilay sanadii hore ee 2020. hay-adda Amnesty ayaa ku andacotay in dilkani u dhacay kagadaal markii qirasho qasab ah iyo maxkamadeen aan cadli ahayn lagu fuliyey. bishii January ee sanadkan guddiga xuquuqda aadanaha ee Sacuudiga ee dowladda taageera ayaa sheegay in 85% wax ka yar la dilay sanadkii hore ee 2020 marka la barbar dhigo sanadii ka horreysay ee 2019. ugu dambeyn, madaxweynaha dalka Masar Cabdulcasiis Al-Sisi ayaa sheegay in haatan la soo gaaray xilligii sare loo qaadi lahaa sicirka rootiga, iyadoo tani ay tahay wax xasaasiyad weyn ka ah sanadihiina soo dhaafay dalkaasi. Sisi ayaa intaa ku daray in qiimaha lagu darayo aanu ahayn wax badan, ha yeeshee wuxuu soo jeediyey madaxweynaha inaanay ahayn wax loo qaateen ah sii wadista kabidda lagu sameeyo sicirka rootiga marka loo eego in ay isku qiimo yihiin hal sigaar ah iyo xayn ama xoogaa yaroo rooti ah. hay-adda lacagta adduunka IMF oo siisay waddankan deyn aad u fara badan waa dalkan Masare ayaa ku boorisay in kabista cuntada ay ka faa'iidaystaan kuwa sida dhabta ah ugu baahan. kor u kaca qiimaha rootiga taasoo dhacday sanadii 1977 ayaa kicisay mudaharaadyo ay dad badani ku hoobteen. intaas waxaa inoogu dhan warkii aan dib idinku celiyo Kawthar iyo qeybaha kale ee barnaamijka. Kawthar, aad baad umahadsantahay xasan anteeno. dhegeystayaal, qeybaha kale ee barnaamijkeena dunida iyo maanta waa tahay galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. aan ku bilaabna ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo la kulmay 11 xubnood ee guddiga doorashooyinka Somaliland ayaa sheegay in doorashadii guddoomiyenimada guddiga oo hore loo dhisay la baabi'iyey iyo inuu dib isu dooran doono. sidaa daraaddeed goobta iyo waqtiga doorashadu dhici doontana lasoo sheegi doonaan iraahde. wariyaha BBC da ee magaalada Muqdisho Ibrahim Maxamed Aadan ayaa hadda khadka toos ugu jira oo inoo waramaya. Ibrahim. Kawtharay, go-aankaasi ra-iisul wasaare maxamed xuseen Roble waxa uu uga dhawaaqay saaka mar uu la kulmay 11 xubnood ee uu ka kooban yahay guddiga maamulaya doorashada xildhibaanada gobolada waqooyi ee Somaliland. 11 xubnood markoodii hore waxay ku yimaadeen labada garab ee ay u qaybsan yihiin siyaasiyiinta reer waqooyiga oo min 4 soo xulay iyo ra-iisul wasaaraha oo 3 ku daray. sidaas ayay 11 uga koobnaayeen. 7 kamid ah ayaa waxay qabteen fadhi ay ku dooranayaan gudoomiye ku-xigeen iyo xogayaha guddiga, laakiin 4 kamid ah 11 xubnood ayaa diiday kulankaas. iyana shir kale intay qabteen ayay waxay yiraahdeen waxaan dooranay guddoon golahu u yeelan doona. marka dabcan khilaafkaas ayaa muddaba soo jiitamayay iyadoo ra-iisul wasaaruhu isku dayay inuu labada dhinacba ku qanciyo in si wada jira doorashada loo aado. labada dhinac waxaa kaloo hogaaminaya gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Cabdi Xaashi Cabdilaahi, dhinaca kalena ra-iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Guuleed Khadar. shalay ayaa u dambeysay ra-iisul wasaaruhu labadoodaba kulan la qaatay. ha yeeshee maanta markii ra-iisul wasaaruhu guddiga 11 xubnood uu la kulmay waxa uu sheegay sidan: waxa aan maanta idin wargelinayaa in la baabi'iyey doorashada hoggaanka guddiga doorashada gobolada waqooyi ee horay garab A iyo garab B midoo raba ahade isku doortaan. wax la jiraa ma jiraan, doorashadaas waxba kama jiraan. saa darteed waqtiga iyo goobta doorashada waxaa idin soo wargelin doona xafiiskayga iyo guddoomiyaha guddiga doorashada fiid waqtiga ku habboon oo laisku afgarto. soo warcad maaha. kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaare Roble. Ibrahim, intaadan ka bixin siyaasiyiinta gobolada waqooyi ee uu khilaafka ka dhaxeeyay ma ka hadleen arrintan? Kawtharay, intaanan su-aashaada ka jawaabin, ra-iisul wasaaruhu waxa kale uu dardaaran u jeediyey xubnaha guddiga. waxa uu sheegay in khilaafku uu yahay dabeecadda bini aadamka oo wax kasta oo la qabanaya uu khilaaf ka imaan karo. wuxuu sheegay khilaafku inuu muddo sii socon karo laakiin ay u baahan tahay in mar kastaba xal loo helo. waxaan rabaa oo halkaas aan kaga sii darayaa, caqabadaha way badan yihiin. mid maanta bilaabanaysa maaha, waa mid ilaa doorashada ay ka dhammaato oo heer madaxweyne laga soo doorto. mar kasta caqabad way jiraysaa. midiinana waxay ka mid noqonaysaa kuwa ugu fudud, kuwa ka adag ayaa soo mari doono. marka waxaan doonayaa in wada shaqayn toos ah ay idinka dhexayso guddiga fiid uu hogaaminayo guddoomiye Ciro. wixii ka sarreeyo oo la xallin waayo anigana waa joogaa, xafiiskaygana wuu joogaa, guddiga xafiiskayga u qaabilsan doorashooyinka oo korka ilaalinaya. laakiin hawsha waxaa toos u wadanaya guddiga fiid oo uu hogaaminayo guddoomiye Ciro. wax kastoo ku saabsan tashiilaadkeeda, habsami u socodkeeda iyo ka warqabkeeda, amnigeeda, waxaasoo dhan
waa wax guddoomiyaha aad kala tashanaysaan anigana aan diyaar u ahay inaan waxaasoo dhan idiin fududeeyo hadday tahay amniga goorta doorashada ay ka dhacayso wakhtiga ay dhacayso doorashada senatorada doorashada aqalka hoose iyo tan madaxweynahaba wakhtigeeda markii la gaaro kaasi wuxuu ahaa ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble markii uu saaka la dardaarmayay xubnaha guddiga doorashooyinka xildhibaanada gobolada waqooyi ee somalilan kowtaray su-aashaadii haddaan u laabto ilaa hadda wax wara oo dhinacyada khilaafka u dhexeeyay kasoo baxay ma jirto ra-iisul wasaaraha ayaana laga sugaya guddigu marka isdooran doonaan laakiin ila ku dhow xafiiska ra-iisul wasaaraha oo ay b b c du la hadashay waxay sheegtay in xubnaha isdooranaya ay noqon doonaan 11 markii hore arrintaas waxaa dood ka qabay dhinaca cabdi xaashi cabdilaahi oo qabay in 8 xubnood ee guddiga marka laga reebo 3 laga soo magacaabay xafiiska ra-iisul wasaaraha inay isdoortaan oo 4 uu mahdi guleed soo magacaabay 4 uu soo magacaabay cabdi xaashi cabdilaahi laakiin sida hadda muuqata ra-iisul wasaaruhu go'aankiisu waxa weeye in 11 kuba ay isdooran doonaan dabcan markii hore cabdi xaashi kuma qanacsanay laakiin ilaa hadda dhinacooda wax wara oo ka soo baxay ma jiro arrimo kale oo iyadana laftigeeda khilaaf ka taagnaa waxaa ka mid ahayd halka ay ka dhacayso doorashada xildhibaanada gobolada waqooyi oo markii hore qorshuhu ahaa in magaalada gudaheeda doorashada ay ka dhacday gaar ahaan xere gaadiid oo ah xere ay leeyihiin ciidanka booliska doorashadii 2016 lagu qabtay kuraasta xildhibaanada gobolada waqooyi iyo kuwii muqdisho banaadiriga laakiin hadda wararkaas waxay b b c da u sheegayaan in ra-iisul wasaaruhu uu qorsheynaya in doorashadu ay ka dhacdo sida ay dalbanayeen cabdi xaashi iyo dhinacooda hangarka garoonkii diyaaradaha ciidamada cirka ee afisyoon ee magaalada muqdisho karodar aad baad u mahadsan tahay ibraahim maxamed aadan wariyaha b b c da magaalada muqdisho ayuu ahaa khadka ayuu toos ugu jiray wuxuuna nala socodsiinayay faahfaahinta warka la xiriira in ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo waxba kama jiraan ku tilmaamay doorashadii hogaanka guddiyada gobolada waqooyi ee somalilan kadib markii uu la kulmay 11 xubnood ee guddigaasi hagaag markana waxaa maanta yeeshay fadhigoodii ugu horreeyey golaha cusub ee wakiilada jamhuuriyadda gooniisutaageeda ku dhawaaqday ee somalilan kuraasta lagu tartamayay oo ahaa 3 kursi oo kale ah guddoomiyaha golaha iyo 2 guddoomiye ku-xigeen ayaa waxaa dhammaan ku guulaystay xisbiyada mucaaradka ah sida uu kusoo waramayo wariyaha b b c da ee magaalada hargeysa sidiiq maxamed burmed waxaan ilaahay ugu dhaartay inaan u noqonayo daacad diinta islaamka dalkayga somalilan dhaarinta xildhibaanada kadib waxaa loo gudbay doorashada shirguddoonka golaha waxaa mar qura golihii ka hoogmay buuq ka dhashay cidda fadhiga si kumeel gaadha u sii guddoominaysa guddoomiyaha maxkamadda sare aadan xaaji cali ayaa sheegay in sida sharcigu dhigayo xubinka ugu da'da weyn uu fadhiga guddoominayo isagoo intaasi ku daray in yaasiin xaaji maxamuud xiir faratoon uu yahay xubinka ugu da'da weyn golaha ee fadhigaasi guddoominaya faratoon ayaa soo kacay oo fadhiistay kursigii shirguddoonka shirkii waynu furaynaa nidaamka sidoo ahaa baynu ku furaynaa arrintaasi waxaa ka biyadiiday xisbiyada mucaaridka oo sheegay in maadaama faratoon uu yahay musharax ka mid ah xubnaha u tartamaya doorashada shirguddoonka aanay aqbalaynin in doorashada uu ka qaybgelayo uu guddoomiyo caalamka meella kama dhacdo in qofku garsoorihii u garnaqayey uu noqdo qofkii uu la loolamayey sidaa darteed waxaanu codsanaynaa si habsame ay hawsha ugu socoto inuu boodhiyamka ka soo dego murandheer kadib waxaa lagu heshiiyey in guddoomiyaha maxkamadda sare aadan xaaji cali uu shirka guddoomiyo sidaasi ayaana lagu galay dhiibashada codadka waxaan iminka gacanta taagayaa xildhibaanada u codaynaya cabdirisaaq waxaa markii ugu horreysay gacantaag loogu codeeyey 2 xubnood ee u tartamaya jagada guddoomiyenimada golaha oo kale ah yaasiin xaaji maxamuud xiir faratoon oo ka tirsan xisbiga talada haya ee kulmiye iyo cabdirasaaq khaliif axmed oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ah ee wadani golahan oo ka kooban 82 mudane ayaa waxaa ka maqnaa maanta 1 mudane faratoon waxa uu codeeyey 39 xubnood faratoon waxa uu codeeyey 39 xildhibaan cabdirasaaq khaliif ayaa isagana la jiriyey xildhibaanada codadkooda siiyey oo noqday 42 xildhibaan sidaasi ayaanu ku noqday khaliif guddoomiyaha golaha wakiilada waxaa sidoo kale ku kala guulaystay 2 jago ee kala ah guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo ka labaad siciid mire giire iyo cali xaamud jibriil oo labadooduba ka soo baxay xisbiga mucaaradka ah ee ucud xisbiga kulmiye ee talada haya ayaan jagooyinka lagu tartamayay midna ku guulaysan
markii laga soo dareeray aqalka wakiilada ee doorashadu ay dhammaatay ayaa madaxweyne muuse biixi cabdi uu u yeedhay shirguddoonka cusub ee la doortay oo uu ku qaabilay qasriga madaxtooyada halkaasi oo uu ku hambaliyeeyey guusha ay gaadheen xildhibaanadii tartamayay guddoomiyaha baarlamaanka ee cusub cabdirasaaq waan hambalyeynayna oo waa soo dhoweynayna guddoomiye ku-xigeenka koowaad waa soo dhoweynaynaa waanu hambalyeynayna guddoomiye ku-xigeenka saddexaadna waa soo dhoweynaynaa oo waa hambalyeynayna guddoomiyihii la tartamayay professor yaasiin waanu hambalyeynaynaa tartan si dhow buu ahaa waa lagu talagalay waa dimuqraadiyad gacantaa la taagay in lagu kala baxo siduu u hambaliyeeyey iyo waayeelnimadii muujiyeyna waa soo dhoweynaynaa waxaan hambalyeynayaa odayaashii maanta maamulay arrintaa sida gobonnimada leh iyo isdhowridda ee hadday saqar yar dheesha laysu qabanayey ee laysu aamusinayeyna quruxdaanu kaga soo baxnay maanta somaliland oo dhan baa guulaysatay nin quri ma guulaysan xisbina ma guulaysan somaliland oo dhan baa guulaysatay loolankii adkaa ee xisbiga dowladda iyo xisbiyada mucaaradka u dhexeeyey ee muddaba soo socday ee dhinaca doorashooyinka shirguddoonka ayaa sidaasi ku soo idlaaday iyadoo guuldarro weyna ay ka raacdo xisbiga talada haya sidiiq maxamed burmad b b c hargeysa markana isla qodobkaasaan eego dhegeystayaasheenna dhanka facebook waxay ka yidhaahdeen mawlid xasan oo cadaado jooga waxau leeyahay guddoonka cusub ee maanta ay doorteen baarlamaanka somalilan waan soo dhoweynayaa waxaana muuqata in doorashadaasi si hufan leh ay ku dhacday waxaanse baarlamaanka iyo guddoonka cusubba looga fadhiyaa haqabtirka shacabkii codkooda siiyey ee reer somalilan xamdi muuse saalax oo baran joogta waxay leedahay guddoomiyaha loo doortay golaha wakiilada somalilan hambalyo ayaan leeyahay guddoomiyaha cusub waxaa u taal howl adag oo ah inuu hogaamiyo mucaarad iyo muxaafad mid u codeeyey iyo mid ka codeeyeyba waana inuu dulqaad yeeshaa maadaama xilkuu sidiisaba yahay mas-uuliyad dhaliil iyo wanaagba lagala kulmo hagaag ee kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhegeystayaasha b b c da ee facebooka b b c waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba waatahay dhegeystayaal qodobo kale inoo soo socdo ay ka mid tahay dagaalo hor leh oo u dhexeeya soomaalida iyo canfarta etoobiya oo lasoo warinayo balse markan qaramada midoobay ayaa sheegtay in dadka rayidka ee ku nool dalka afghanistan ay saameynta ugu weyn ee kasoo gaartay dagaalada u dhexeeya kooxda taalibaan iyo ciidamada dowladda kuwaas oo ku dagaalamaya gacan ku haynta laba magaalo oo muhiim ah oo kale ah magaalada lashkarka oo ku taala gobolka helmand iyo magaalada kandahar ee caasimada gobolka kandahar saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay ee ay dagaaladu sii xoogeysanayeen tiro dhowr ah oo rayid ah ayaa lagu dilay magaalada lashkarka iyo 5 magaalo oo kale faahfaahin intaasi dheer waxaa inoo haya xasan cali geele qaramada midoobay ayaa ugu baaqday dowladda afghanistan iyo ururka taalibaan inay ku dadaalaan badbaadinta dadka rayidka ah waxayna ka digtay saamaynta colaadaasi oo ay sheegtay in haddii labada dhinac ay ku guuldaraystaan badbaadinta dadka rayidka ah ay arrintaasi noqon doonto masiibo waxay sheegtay in kumanaan qof oo rayid ah ay barakaceen xilli dad badanna ay cabsi ku nool yihiin qaramada midoobay waxay intaasi ku dartay in weerarada dhanka dhulka ah ee taalibaanku ay wadaan iyo weerarada dhanka cirka ah ee dowladda ay waddo ay inta badan waxyeello u geystaan dadka rayidka ah ee dalkaasi waxay sidoo kale welwel ka muujisay isbitaallada iyo goobaha kale ee caafimaadka iyo sidoo kale guryaha ay dadka rayidka degan yihiin oo ay waxyeeleeyaan ama ay qabsadaan dhinacyada dagaalamaya dadka ku nool magaalada lashkargaah ayaa sheegaya inay cabsi ku nool yihiin xilli magaaladaasi ay wajahayso weeraro culus oo kaga imaanayo mintidiinta taalibaan oo iyagana wajahayo duqaymaha dhanka cirka ah ee diyaaradaha dagaalka ee dalka maraykanka iyo kuwa dowladda afghanistan qaramadii midoobay waxa ay sheegtay in shalay oo keliya ugu yaraan 40 qof oo rayid ah lagu dilay magaalada lashkargaah iyadoo halkaasi uu ka socdo dagaal xooggan mintidiinta ururka taalibaan ayaa lagu soo warramayaa inay qabsadeen inta badan magaaladaasi hase yeeshee dagaalka ayaa sii socda waxaana ciidamada dowladdu ay wacad ku mareen in aysan u oggolaan doonin magaaladaasi inay gacanta u gasho mintidiinta taalibaan dhanka kale jenaraal reer afghanistan ayaa ka digay cawaaqib xumada ku imaan doonto amniga caalamka waa haddii buu yidhi taalibaanka loo oggolaado in ay guula ka gaaraan dagaalka ay kula jiraan ciidamada dowladda jenaraal saami saadaat ayaa b b c da u sheegay in taalibaanku ay qabsadeen xoogaa dhul ah tan iyo markii ay dalkaasi ka baxeen ciidamada shisheeye hase yeeshee waxa uu sheegay inuu ku kalsoon yahay in laga adkaan doono
jenaraal saadaad waxa uu sidoo kale ku booriyey dadka rayidka ee deggan magaalada lashkargaah inay sida ugu dhaqsaha badan uga baxaan magaaladaasi ka hor inta uusan bilaaban howlgal ciidan oo ka dhan ah taalibaan balse shariif kariimi oo ahaan jiray turjubaanka ciidamada britain ee joogay helmad haatanna ku nool magaalada lashkargaah ayaa sheegaya in xaaladda meeshaasi ka jirta ay tahay mid aad u liidato boqolkiiba 95 magaalada gacanta waxay u jirtaa taalibaan meel kasta oo ka mid ah waddooyinka waxaa daadsan meydad marka xaaladda ma wanaagsano aad ay u xun tahay xaaladda waana xaaladdii u xumayd ee nabid arko waxaan u malaynaya in dawladda aysan lahayn awood xooggan si dadkan looga saaro magaalooyinka waxaa huwaala inaysan dib u qabsan doonin magaalooyinka muddo sannad ah ama in ka badan 10 sano maadaama taalibaan ay gacanta ugu jirto degmooyinkii ay horaan u qabsadeen welina gacanta ayay u jiri doontaa taalibaan shariif kariimi waxa uu ka digay khatarta ballaaran ee ka dhalan karayso dagaalkan sii xoogaysanaya dhanka kale dhakhaatiirta magaalada lashkargaah ayaa sheegaya in dagaalku uu ciriiri geliyey howlihii caafimaad ee ay qaban jireen doctor masuud khan oo ka tirsan hay-adda samafalka caafimaadka ee MSF ayaa sheegaya in sahaydu ay aad ugu yar tahay islamarkaana uu la daalaadhacayo sidii loo daweyn lahaa bukaanada dhaawaca ah arrintan ayaa imaanayso xilli maraykanka uu taalibaan ku eedaynayo inay xasuuq ka geysanayaan dalkaasi afghanistaan xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa sheegay inuu arkay warbixinno ku saabsan xasuuqa ay geysanayaan taalibaanka dalkaasi afghanistaan wararkan waa kuwo naxdin leh oo aan gebi ahaanba la aqbalaynin waxaan filayaa inay ka hadlayaan arrimo waaweyn oo ay ka mid tahay in taalibaan ay marar badan ku soo celcelisay inay doonayaan mustaqbalka arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin inay helaan aqoonsi caalami ah taageero caalami ah sidoo kale waxay doonayaan in hogaamiyaasha taalibaan ay si xor ah ay u safri karaan guud ahaan adduunka waxay sidoo kale doonayaan in cunaqabataynta laga qaado marka arrimahani suurtagal maaha inay dhacaan waa haddii taalibaan ay doonayso in si xooga ay ku qabsato dalka islamarkaana ay geysato tacadiyada horaan loo soo tabiyey codkaasina waxaa u dambeeyey warbixintii uu inala socodsiinayey xasan cali geelle ee dagaalada dalka afghanistan markana wararkaanu ka helayno dalka etoobiya ayaa sheegaya inay dib u soo cusboonaadeen dagaalada u dhexeeya soomaalida iyo canfarta ee dalkaas gaar ahaan tuulooyin hoos yimaada magaalada candhuufo madaxa wakaaladda horumarinta caalamiga ee dowladda maraykanka ee loo soo gaabiyo usaid ayaa maanta booqasho ku tegi doonta dalka etoobiya iyadoo weli laga deerinayo xaaladda bini-aadinimo ee gobolka tigray dhanka kale waxaa la arkay meydad 10 qof ah oo dul sabeynaya webi mara xadka suudaan iyo etoobiya sida laga soo xigtay shacabka ku sugan dhinaca suudaan wararkii ugu dambeeyey dalka etoobiya waxaa goor dhoweyd iga warramay wariye ismaaciil buurgaabo sida aan la wada soconnaba kawsaray dagaal ayaa dabayaaqadii bishii aynu soo dhaafnay ku dhex maray deegaanada canfarta iyo soomaalida xadka ay wadaagaan laakiin shalay waxaa lasoo sheegay oo dad goobjoogayaal ay ii sheegeen in canfar ay soo weerartay tuulooyin hoos yimaada magaalada candhuufo oo ka mid ahayd 3 magaalo ee markaasi ay soomaalida degan tahay ee lagu wareejiyey canfarta ee markaasi muranka uu ka taagan yahay qabale ama tuulo lagu magacaabo shakle gaar ahaan aagga loo yaqaano laba gole oo 50 kilomitir magaalada candhuufo u jira ayaa halka soo weerareen canfarta ayaa leeyahay inkastoo dhanka kalena aan ka xaqiijin halkaas dagaal ayaa ka dhacay dhaawac wuu jira 2 qof ah ilaa iyo 1 qofna uu ku dhintay iyadoo sidoo kale ay taagan tahay xaaladii magaalada garbaciise oo labada dhinacba ay ka fadhiyaan kadib markii dirir kharaar ay ku dhex martay canfarta iyo soomaalida magaaladaasi 27 bishii July aynu soo dhaafnay ma jiraan wax ka hadlay oo dhanka dawladda dhexe ah ama isku day lagu dhexdhexaadinayo waxaana muuqata in aan isku hub aruursanayo kawsaray ismaaciilo waxaa jira warar sheegaya in meydad laga helay webi dhex mara ee suudaan iyo etoobiya warkaas maxaanu ka haynaa dowladda seema ka hadashay kawsaray ku dhowaad 40 meyd ayaa soo caariyey baa leeyahay webiga takase dhanka etoobiya looga yaqaano setitna xagga iyo suudaan laga dhaho oo ah dhanka bari ee dalkaasi suudaan ayaa mas-uuliyiin ka tirsan gobol ka mid ah gobolada suudaan oo lagu magacaabo kasalla ayaa sheegay oo qaar ka mid ah warbaahinta caalamka u sheegay inay soo caariyeen meydad ay filayaan inay ka yimaadeen dhanka magaalada xumura halkaas oo ay la sheegayo in maaragtay dad shacab ah lagu laayay waa halkii dirirta ay ku dhex martay ciidamada Ethiopia iyo fallaagada TPLF waxaa la sheegayaa in dagaalkii halkaa ka dhacay dad meyda iyo dad lagu laayay oo shacab ahaa in iminka webiga maadaama uu xilli roobaad yahay ay biyo galeen oo ay ka soo caariyeen dhanka iyo webigan takase dhankiisa
suudaan waxaa loo sheegay wakaalada ab oo kale in ilaa iyo 40 ilaa 50 in u dhaxaysa inay yihiin meydadka la arkay iyadoo aan la xaqiijin karin dowladda ayaanan ka hadal arrintaasi oo eedayntaasi aanan ka jawaabin inkastoo eedayntaasi ay soo jiidatay inay ka hadlaan qaar ka mid ah hay-adaha caalamka gaar ahaan haweeneyda la filayo inay soo gaadho dalkan Ethiopia ee lagu magacaabo Samantha Power ee markaasi hogaamisa hay-adda USAID ayaa waxa ay walaac ka muujisay sida ay sheegtay wararka ka imaanaya dhinaca iyo Suudaan barigeeda iyo iyadoo sheegtay in meydadkan la helay ay la mid yihiin sheekooyin ay markaasi la wadaageen qaxooti dalka Ethiopia ka soo qaxay gaar ahaan magaalada deegaanta la yiraahdo Xumura deegaanka Tigray ka mid ah sidoo kale waxa arrintani ka falceliyay haweeneyda lagu magacaabo Alice Warimu oo ah taliyaha gaarka ee Antonio Guterres xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan dhanka ka hortagga xasuuqyada waxa ay aad uga walaacsan tahay xaaladda soo xumaanaysa ee markaas ay ku tilmaamtay isirbeesiga ka jira deegaanka Tigray marka sidee Ethiopia u aragtaa imaanshiyaha madaxa hay-adda gargaarka ee Mareykanka mas-uuliyiin badan oo ka mid ah dowladda Ethiopia iyo qalinleyda ku difaaca dhanka baraha bulshada waxay walaac badan ka muujinayaan Samantha Power oo hadda Suudaan ku sugan oo la filayo in dalka Ethiopia ay imaato waxa aad loo hadalhayaa madax banaanida Ethiopia in la ilaaliyo in sidoo kale shaki badan laga muujiyo Samantha Power inaysan u soconin furfuridda gargaarka sidii u gaari lahaa Tigray balse waxay u dhigayaan mas-uuliyiin badan oo Ethiopia ka mid ah inay tan tahay isku dayeyso inay ku samayso isbedel xukuumadeed taas oo u muuqata in walaac badan ay ka qabaan tuliyiinta Ethiopia aad buu u mahadsan yahay waryahayaga Ismaaciil Buurgaabo oo iga waramayay dagaalada ee u dhaxeeya Soomaalida iyo Canfarta ee dalka Ethiopia oo soo cusboonaaday Facebook-aan mar kale fursadda siiyo dhageystayaasha Faarax Maxamed oo Hargeysa jooga waxa uu leeyahay waan ka xumahay dagaalada soo noqnoqday ee u dhaxeeya qowmiyadaha Canfarta iyo Soomaalida waxaana dowladda federaalka Ethiopia la gudboon inaanay indhaha ka daawan dagaalka ee ay wax ka qabato si loo sugo ammaanka iyo xasiloonida labada qowmiyadood iyo guud ahaanba Ethiopia maxamed qarre muqdisho joogana waxa uu leeyahay dagaalada horta leh ee u dhaxeeya Canfarta iyo Soomaalida waan ka xumahay waxaana labada maamul laga doonayaa inay wax waliba ay ka doorbidaan waan waayo dagaal waxa uu leeyahay dad leh ku baaba'aya hawle ku xasilmi mayso waa tahay aad bay u mahadsan yihiin waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhegeystayaasha BBC-da ee Facebook-ga weli halka aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee BBC-da ka dhagaysa BBC Somali mobilkaaga raadiyaha iyo online-ka bbcsomali.com madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya William Ruto ayaa gelinkii dambe shalay laga hor istaagay inuu safar ku tago dalka dariska la ah Kenya ee Uganda siyaasiyiinta xulafada la ah madaxweyne ku-xigeenka ayaa si kala duwan uga falceliyay tallaabadaas madaxweyne ku-xigeenka looga hor istaagay ee safarkiisa arrintan ayaa imanaysa xilli uu sii xumaanayo xiriirka u dhaxeeya madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa oo shaaciyay inuu madaxweynenimo u tartami doono doorashada sanadka dambe ka dhici doonta dalka Kenya Samir Abdullahi Jaamac ayaa faahfaahinaysa madaxweyne ku-xigeenka dalkani Kenya William Ruto ayaa lagu waday in uu dalka Uganda u tago arrimo gaar ah markii waaxda socdaalka dalkani Kenya ay ku wargeliyeen in uu u baahan yahay in fasax uu ka soo qaato dawladda walow 5 saacadood kadib loo ogolaaday isaga iyo xildhibaano kale oo la socday inay safraan qaar ka mid ah xildhibaano xulafo la ah madaxweyne ku-xigeenka ayaa barahooda bulshada ku soo qoriyay qoraallo muujinaya kacdoonkooda William Ruto dhawaanahan xiriirkiisa saraakiisha dawladda ma wanaagsanayn Master Ruto ayaa waayadanba booqanayay dalka Uganda halka madaxweynaha dalkaasi Uganda Yoweri Museveni uu horaantii bishan martigeliyay William Ruto xilligaas oo ay socotay munaasabadda dhagaxdhigidda warshadda talaalka kadib markii laga hor istaagay in uu wadanka ka dhoofo waxa uu bartiisa Twitter-ka ku soo qoray dhib male alle ayaan u daynaynaa ma sii jiri doonto farxaddii iyo reenreentii xiriirkii walaaltinimo ee ka dhaxeeyay madaxweynaha dalkani Kenya Uhuru Kenyatta iyo ku-xigeenkiisa William Ruto markii ay xafiiska imanayeen sanadii 2013 madaxweynaha ayaa horaan ku-xigeenkiisa ku eedeeyay in uu ujeedo la'aan uga safray dalka Mr Ruto ayaa u sharaxan
xilka madaxweyne ee doorashada sanadka xiga ka dhici doonta dalkani waxaana uu aaminsan yahay in dad awood ku leh dowladda dhexdeeda ay isku dayayaan in ay hor istaagaan musharaxnimadiisa. waa tahay samiir cabdulaahi jaamac aad ay u mahadsan tahay waxa ay nala socodsiinaysay faahfaahinta ee safarka loo diiday madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya ee William Ruto kaasoo shalay gelinkii dambe laga celiyey garoonka diyaaradaha ee dalkan Kenya waa Wilson Airport. waa tahay samiir way mahadsan tahay dhegeystayaal. Afrikada bari saacadu waxa ay tilmaamaysaa haatan 5:15 xiliyadan oo kalena waxaad nooga barateen qodobada balse waxaa inoo soo socda qodobo kale oo ay ka mid tahay waxaa jirto in yar oo gargaar bini'aadanimo ah oo markii masiibooyinka ay dhacaan dadkan la gaarsiiyo inta kaleetana ee meeshoodii ay kasii bilaabanayso inay sii barakacaan ama daadadha barakiciyaan ama anyax markii intii ay jirto booyinkan ama maxaa ahayd dhibaatooyinkan dadkiina ay weli door bidayaan gargaar iyo gacan bini'aadanimo ee ay sugayaan ayagii ayna door bidayna inay beerahooda qotaan ama ay wax soo saartaan ma filaayo in laga baxayo. waa barnaamijka tusmada nolosha oo talaado walba aad ka dhagaysataan laanta af Soomaaliga ee BBC-da balse markan colaad ee bishii hore degmada Doolow ee Soomaaliya ku dhex martay 2 beelood oo halkaas wada dega ayaa gaaray heshiis nabadeed oo ay in muddo ah ka soo shaqeynayeen ergooyin 2 beelood ee ay dirirtu dhex martay u kala dabqaadayay waxayna 2 beelood ku heshiiyeen in colaadda la joojiyo dadka colaaddaasi ku barakacayna ay deegaanadooda dib ugu soo laabtaan. warqadda lagu baahiyey go'aanka ergada ah ee heshiiska 2 beelood waxaa lagu sheegay ciddii heshiiskaasi u hoggaansami weydo in tallaabo sharci ah laga qaadi doono. haddaba guddoomiyaha ergada 2 beelood ee ku dagaalantay degmada Doolow ee Soomaaliya Macalin Xasan Cali Cabdille ayaan ka wareysanay qodobada heshiiskaas nabadeed wuxuuna u waramay waryahayaga Xasan Cali Geele. walaal heshiisku wuxuu u dhacay si wanaagsan ergadu waxay howl gashay dhexdhexaadinta 2 beelood ee dagaalantay 7 bishan ama horaantii bishan 7 bay howl gashay ilaa haddeerna way soo daadihinaysay maanta taariikhdu oo 2 bishii 8 laga soo gaaro. marka qodobada lagu heshiiyey maxaa ka mid ah? qodobada lagu heshiiyey qayb hore jirtay in xabadda la joojiyo goobihii lagu dagaalamayna oo shacabka qayb inta badan ka qaxeen laga qaado ciidamada qubaysan kadibna muddo 20 beri kadib waxaa suura gashay in la isku keeno 2 beelood oo dagaalantay ergada in badan dhex joogtay beelaha kolba qolo u tagaysay si ay isugu soo jiidaan 2 bisha 8 oo maanta ahaydna waxaa noo suura gashay ilaa fadliga inaan isu keenno ay isla ogolaadaan heshiis iyo qodobadii ay soo bandhigeen ergadii ku hawlamayd muddadaas bisha. adigu ergadaas ayaad guddoomiye u ahayd colaadii markay bilaabto dabcan wax unbay salka ku haysay arrimihii asaaska u ahaa colaadaasi ma laga wada hadlay? waa laga wada hadlay oladahaas dhul beereed iyo dhul deegaanba way lahaayeen xilliga hadda qoriga iska badan marka waxaanu macno badnayn bay ummadda isku laysaa ama ku dagaalantaa waa laga wada hadlay dhul beereed webiga iyo matooro saaran yihiin oo dhul beereed ah webiga Jubba ay wada dagaal 2 beelood oo dagaalantay ayaa soo waayay inta badan waa laga wada hadlay dhammaan wixii sababay in la dagaalamo qaabaha qodobada lagu soo bandhigay bay ka mid tahay. marka qaabkee looga heshiiyey qodobkaasi? waxaa looga heshiiyey beeraha dee kolley beeraha isku haystaa ka mid ah in maxaan ku rahdaa sharciga ama dukumentiga qeexaya ama caddaynayo qofka sheeganayo lahaanshihiisa caddaynayo in loo soo bandhigo ergada iyo dadka maamulada deegaanka dagaalku ka dhacay sida degmada Doolow oo kale iyo maxkamadahooda ciddii dukumenti sharciyeysan oo dimuqraadiyadiisa caddayntiisa la timaadana hantida ay sheeganaysa lagu wareejiyo ciddii aan wax caddayn la imaanna loo bandhigo shareecada islaamka ayadoo shaksi iyo shaksi ay ku doodayaan qabiil wax ku haystaa loo dhigay waa ka mid a qodobada awalna lagu dagaalamay haddana la qeexay la islana afgartay fulintoodana waa loo taagan yahay haddii alle. waxaa sidoo kale jirta muddadii ay colaadani socotay in dad la kala dilay hanti la kala dhacay maxaa laga yeelayaa kuwa? sida la og yahay dee dagaalo noocaana markay dhacaan wixii dagaalka saf iyo saf ku dhinto way adag tahay in maaragtay dadkii nooca ku dhintay wax laga soo qaado qalabkii dagaal ee lagu kala furtay wax laga soo qaado laakiin si dagaalkaas ka baxsan ama hanti ku dhacantay ama naf lagu gooyo iyadoo dagaalamay kuwaas waxay noqonaysaa sida caadiga in iyo waxyaabaha lagu kala qaado maaragtay lagu kala badbaco inta badanna ma jirin hadda dagaalka saf wax ku dhintay ma ogiye dilil kale oo dagaalka ama ka horreeyey oo dhow ama ka dambeeyey ma jiraan dagaalkii maalmo ugu dhacayay markii laga saaro. dad ayaa qaxay qaarkoodna sida ay sheegeen guryahooda ayaa la gubay haatan waa dad maati oo meelo kale ku kala nool dadkaasi maxaa laga yeelayaa? dadka insha allah wixii maanta ka dambeeyo oo heshiiska uu dhacay maamulada
heer gobol heer degmo gobolka gado xildhibaan qaran oo xildhibaanada federaalka oo labada belood mid kamid oo matalayay beesha kale xildhibaankeeda oo afkooda labada xildhibaan ku hadlaya oo goobjoog ahaa iyo dhammaan mas-uuliyiinta gobolka ayaa la isla afgartay insha allah wixii hadda maalmo ka dambeeyo dadka in lagu celiyo goobihii ay kasoo qaxeen waana waxyaabaha heshiiska labada beelood maanta ay isla garteen ogolaadeenna dadkaasi degdega oo maaragtay muxuu ahaa waafaqsan dhibaatooyinkii kasoo gaartay si ay uga soo kabtaan waxaad ii sheegtaa marka dadkaas sideeba kalsooni loogu abuurayaa inay ku noqdaan goobihii ay kasoo qaxeen iyagoo og dhibaatadii dhacday waxaa loogu abuurayaa inay ku laabtaan iyagoo kalsoon deegaan nabad inuu yahay ergadii dhexdhexaadinaysay dee haddaba iyadaa sabab u ahayd inay labada dhinac koba mar u tagaysay odayaashii dadkii iyo dhammaan dadkii ka hubaysanay waa dad beeleed maarata beelo kale ka yimid go-aanka waa la qaatay labada beelo odayaashooda gaar ahaan qolada hadda meesha joogta iyo cid kastoo hubaysan hooyintooda iyo odayaalkoodaa joogo dee haddii ugu kala maqasho marka waa la horseedayaa inta haddaba nabadda u fiicaysaa horseedaysa guddoomiye ee qodobadaasi aad isla qaadateen ee lagu heshiiyey ee labada dhinac ay saxiixeen waxay u baahan yihiin in la fuliyo idinka ergada ah ee arrintan wadayna ciidan idin gooni ah oo qodobadaasi dadka ku fulin kara ma lihidiin marka qaabkee loo fulinayaa waxaa loo fulinayaa ciidamada amniga ee gobolka joogo degmada doolow kuwa luuq kuwa maxaan ku rahdaa lama ammaan oo badan oo fara badan ciid badan baa jiro gobolka joogo waa si adag baa looga hadlay loona go-aansaday in maxaan ku rahdaa arrintaas si loogu istaago dhaba oo la sugo dadka inay guryahooda nabad ugu noqdaan cid kastoo isku daydo inay maxaan ku rahdaa arrintaa markaa soo celisana waxaa la go-aansaday qodobada lagu heshiiyada ka mid ah ciidamada ay ku laqaadeen in si gacan maxaan ku rahdaa gacan adag lagu qabto oo maxaan ku rahdaa awood dowladeed loo isticmaalo laguna khasbo dadkaas cidda gacan in la siiyo cidda kaleetan maarata la iskugu tago oo la sugo dadka nabad ugu guryaha ay kasoo qaxeen waa hagaag ee kaasina waxa uu ahaa guddoomiyaha ergada labada beelood ee ku dagaalantay degmada doolow ee soomaaliya macalin xasan cali cabdile waxaana uu u waramayey wariyaha b b c da xasan cali geele waa tahay markana dhanka iyo shiinaha waxaa guud ahaan maanta mas-uuliyiinta magaalada wuhan ee dalka shiinaha ay sheegeen in baaritaanka fayraska corona uu ka bilaabmi doono magaaladaas kadib markii kiisas hor leh oo xanuunkaas laga soo wariyey halkaasi wuhan oo ah magaalada oo markii hore ka dilaacay fayraska corona ayaa markii ugu horreysay laga diiwaangeliyey kiisaska xanuunkaas kadib muddo 1 sano ah faahfaahinta warkaasi waxay noo haysa samiir cabdulaahi jaamac magaalo ay ku nool yihiin 11 milyan ayaa noqotay xudunta cudurka kadib markii kiiskii ugu horreeyay laga helay 2019 shiinaha ayaa haatan u muuqda inuu ka mid yahay wadamada uu sida weyn ugu baahayo cudurka muddo bilooyin ah 300 oo kiis ayaa la diiwaan geliyey 10 maalmood gudahood 15 gobol oo wadanka ka mid ah ayuu saameeyey cudurka taas oo keentay in dowladda ay bilowdo baaritaan xoogan iyo in ay soo rogto xayiraadaha dhaqdhaqaaqa saraakiisha ayaa shaaciyey in fayraska dardar u faafi karo afaracan daltaha ah xilligan lagu jiro dalxiiska wadanka gudihiisa ah tallaabada wuhan ayaa imaanaysa iyadoo shiinaha uu shaaciyey 90 kiis oo cusub maanta guddiga caafimaadka qaran ayaa sheegay in 61 kiis oo ka mid ah kiisaska ay dadka gudaha isu gudbiyeen uu ka badan yahay marka la barbar dhigo 55 kiis oo la diiwaan geliyey maalin sii horreysay shiinaha ayaa si weyn ugu guulaystay xakamaynta fayraska si kastaba ha ahaatee soo laba kaclayntan cusub oo markii ugu horreysay laga helay shaqaalaha eelboorka nanjin oo ka mid ah meelaha aadka ugu mashquulka badan ayaa walaaca sare u qaaday saraakiisha ayaa baaray 9.2 milyan oo ka mid ah dadka degan Nanjing 3 jeer waxaana 100 kun oo qof lagu soo rogay xayiraadaha dhaqdhaqaaqa balse maalmihii fasaxa gobolka Wuhan ayaa isu bedeshay xudunta cudurka halkaas oo kiisaskii ugu dambeeyay laga soo warinayay waxaana la aaminsan yahay in dad ka yimid Nanjing ay dhawaan booqasho ku yimaadeen magaalada aad baad u mahadsan tahay samiira toddobaadkan waxaa dunida oo dhan loo asteeyey toddobaadka naasnuujinta adduunka si bulshooyinka loogu dhiirigeliyo faa'iidada ay carruurtu u leedahay naasnuujinta haddaba faa'iidooyinka naasnuujinta ay leedahay ayaa waxaan ka waraystay doctoresa caashe cumar kablow oo ah dhakhtarad ku takhasustay hooyada iyo dhallaanka oo ka howlgasha magaalada muqdisho naasnuujintu waa faa'iido weyn caanaha hooyadu ilmaha u leeyihiin sida aan la wada soconno ilmuhu markii ay dhashaan waxa aysan lahayn waxaa loo yaqaan difaaca jirka bini'aadamka difaacooda ilaa iyo 2 sano ka gaaraan wuxuu ku xiran yahay kan hooyada halka ay ka helaanna wuu soo mara difaacaas nooca caanaha hooyadu waxyaalo fara badan ay ka samaysan yihiin waxa ugu muhiimsan waxaa ka mid a proteinka waxaa ku jira amino acid waxa loo yaqaano waxaa ku jira sokorta ilaa iyo 200 oo sokorood oo kala duwan ayay leeyihiin waxaa
kaloo caanahan hooyadu leeyihiin enzymes 40 enzymes ayaa ku jira oo jirka bini'aadamka aad u anfacaya khaasatan korista ilmaha kobciisa waxaa ku jira hormones oo iyadana sidoo kaleeto ilmaha koritaankooda aada uga qayb qaadanaya vitamins and minerals waxyaalaha vitamiinka iyo cusbooyinka way leeyihiin waxay leeyihiin difaaca jirka oo caadi ah antibody waxa loo yaqaano iyo micro RNA wax la yidhahdo ilaa iyo 1400 oo micro RNA ah shaqadooduba ay tahay inaysan ilmuhu yeelanin wax xanuun ah cudur oo dhan uu ilaahay kaga shaafiya iyo caanaha leeyihin marka saas daraadeed caanaha hooyada khaasatan wayba sii kala culculisiina kuwa bilaha ugu horeeya iyo maalmaha ugu horeeya waa faa'iido aan la soo koobi karin ayay noqon sanadihii dambe waxaa soo badanayay caano waxyaabaha isku jira la yiraahdo nafaqadii naasaha ayaa ku dhan marka caanahaas ma u istaagi karaan caanaha naaska hooyada aslanba maya isbuucan aan ku jirno oo bisha 1 ilaa iyo 7 Agost oo loo asteeyay isbuucii dhiirigelinta muujinta naaska hooyada waxaa ka mamnuuca marka lagu jiro isbuucaas warshadaha iyo kambaniyada iyo hay-adaha iyo ganacsiyada soo saara caanaha artificialka ee budada ee xoolaha laga keenay hataa inaysan ka qayb qaadan karin oo aysan wax loogu ku yeelan karin naaska hooyada wax bedeli kara iyo wax u dhigmi kara iyo wax buuxi karkaalin midna ma 6 bilood ee ugu horeeya waxaa la sheegaa inaan caanaha naaska wax kale loogu darin caruurta maxaa dhacaya haddii wax kale loogu daro waxaa jirta horta 6 bilood ilmaha markii ay dhashaan caanaha oo kaliya inay qaataan ayaa ah sida ugu wanaagsan oo ilmaha lagu koriyo waxaa dhici karta in loo raaciyo biyaha si ay u bartaan biyaha cabidoodana laakiin wax cunno ah ma la siin karo maxaa yeelay uma ay aha diyaar calooshooda ma ay u aha inay ku samayso burburin iyo nuugis iyo cunnada waxaa rabaa in digest wax la yidhahdo ay marto oo la ridqo oo jirku nafaqada ka qaato oo inta aanu rabinna uu ka sooco intaaba ilmuhu diyaar uma ay aha laakiin markii ay 6 bil buuxiyaan ayaa waxaa khasab ah in ka baxo caanihii iyo biyihii wixii dareeraha ahaa oo uu barto waxaan dareere ahayn oo calooshin ay la jaanqaadin marka waxa dhacaya waxay yihiin haddii la siiyo cunno 6 bilood ka hor inuusan xamili karaynin oo burburin karin oo mindhiciradiisu aysan diyaar u ahayn xataa nuugista nafaqooyinka ma jiraan waxyaabo ilmaha caanaha u bedeli karo haddii ay hooyadu awoodi weydo ilmaha inay sidii la rabay u nuujiso wax official ah oo la dhihi karo way bedeli karaan caanaha hooyada ma jiraan haddii ay awoodi weydo ama xanuun ama ay niyada warsanto ama ay dhimataba waxaa la isku waafaqay inay cid kala nuujiso xataa duruufo kalentaas sababi kara inay cid kala nuujiso marka waxaa halkaas ka cad inaan wax bedeli karaa caanaha bini'aadamka waxaana la ogaaday miyiga ayaa kaga wanaagsan magaalada nuujinta afrika maanta sakaalinta koowaad ka galay oo nuujiya ilaa iyo 87% boqolkiiba Rwanda ayaa noqday wadanka koowaad ugu sarreeya ee hooyo ay Burundi ku xigto ilaa 82% nuujisa Sri Lanka iyadana 82 la ah iyadana sidoo kale Asia Soomaaliya waxay kaga jirtaa kaalin aad u hooseysa kaalimahaas waxaan rabnaa marka inaan anagana qayb qaadano ogaadana hooyada Soomaaliyeed iyadii faa'iido ugu jirta ilmaha oo la nuujiyaa waxay faa'iido ugu jirtaa 4 faa'iido waaweyn ta koobaad waa cunug ta labaad waa hooyada saddexaad waa aabaha tan afraadna waa society waa bulshada intaba faa'iidadaas ay ka wada faa'iideysaa marka waa inaan dhiirigelinaa wax bedeli karaa hina ma jiraan hooyooyin qaar waxaa jira fikrado gaar ah leh haddii ay ilmaha nuujiyaan 6 bilood oo isku xigta ama ka badan marka talooyin ma jiraan aad hooyooyinka usoo jeedin lahayd waxaa jira xaalado hooyada ku sababaya inaysan nuujin karin aniga far ahaan dhaqtarka hooyada iyo dhalaanka waxaa jira xaaladahan hooyada ka reebna inay nuujiso waa marka ay qaadanayso daawooyinka qaarkood oo kaleeto oo la yidhaahdo waxaa tusaale kugu soo qaadan karaa qalalka oo kale doctoresa Caaisha Cumar Kablow ay ahayd oo ii waramaysay ciyaarihiina haddii aan eegno kooxda Inter Milan ayaa iska diiday dalab ugu yimid kooxda Chelsea ee ah lacag dhan 85 milyan oo pound oo ay kula wareegayso weeraryahanka kooxdaas Inter Milan ee Romelu Lukaku markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii tusmada nolosha dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka tusmada nolosha oo aan toddobaadkan kaga hadli doono sii wadista gargaarka bini'aadanimo innaga oo diiradda saarayna waxa lagu bedeli karo kaalmada tooska ah si ay dadku u gaaraan isku filnaanshiyo nololeed anigoo Firdawso Sheekh Cabdiraxmaan ayaa idin la socodsiin doona waxaana idiin soo diyaarisay barnaamijkan BBC Media Action in ku dhow 6 milyan oo qof oo Soomaali ah ayaa u baahan caawinaad bini'aadanimo walow uu gaabis ku yimid xilligan ay jirto saameynta cudurka COVID-19 haddaba qaar ka mid ah dadka hela gargaarka kuwa oo kala jooga magaalooyin kala duwan ayaan weydiinay waxa ay la tahay in lagu bedeli karo kaalmada ay qaataan magacaygu waa Hasan Salaad Daahir oo ku nool Beledweyne
waxaa jeclaan lahaa mustaqbalka in gargaarka lagu bedelo in dadka masaakiinta ah oo kaamka barakaca ku nool in guryo loo dhiso oo waxbarasho ilmahooda la geeyo in dadka oo loo sameeyo waxay ku ganacsadaan walibana deganaa degmada Tanbaydhawo qof bini'aadin ee gacantiisa horta may ka tiirsanaado kora waliba jeelada lahaynay inay shaqo abuurna ninka suubi oo ganacsina ninka bedela walaa un hadda gacanta maadaama qof gacantiisa ka tiirsanna Oloma Maxamed Cumar weeye galada aan joogo waa Kismaayo waxaan jeclaan lahaa raashinka in la iigu wado raashinka waxay taraya dhowr bilood oo la lacag waxay tari mayso sababta lacagtu meel ay ka baxday iyo meel kale lama ogaan karo laakiin raashinka 3 bilood buu ku oolaanaya 2 bilood buu ku oolaanaya waa ay mahadsan yihiin dadkaasi codadka waxaa soo duubay qaar ka mid ah wariyaal ka howlgala idaacadaha bahwadaagta la ah BBC Media Action dhanka kale waxaa barnaamijka qayb ka ah oo aan xafiiskiisa ku booqanay madaxa hay'adda qaxootiga iyo barakaca qaranka ee jamhuuriyadda goonistaaggeeda ku dhawaaqday ee Somaliland Cabdikariin Axmed Maxamed waxa uuna iiga warramay wada shaqaynta ka dhaxaysa iyaga iyo hay'adaha gargaarka ka shaqeeya way jiraan kaalmooyin ay helaan mase ah kaalmooyinda ku filan oo waa qof bani aadana baahidiisa iyo wax bani aadam siinaya marna isuma dheelitirmayaan wax joogto ah oo bil walba ay helaan ama waqti walba ay helaanna in badan oo ka mid ma hesho way jiraan qaar si joogto ama raashin u helaa ama lacag u helaa way jiraan dee hay-aduhu hadiya jeer iyaga ayaa mashaariic raadsadaa mashaariicdii wax yar baa lasoo siiya way la yimaadaan waxaasaan haynaa hasaan u galnay bay dhahay markaa dee meel baan u tilmaana uun markaa baahideedu ku badantona halkaa geeya ama kaamka geeya ama gobolka geeya ama degmada geeya oo intaasoo durfuud iyo wax loo taraa sidee markii hay'ad ay wax soo hesho aad u maareysaan marka laga soo tago inaad tilmaamtaan oo dhahdaan baahi noocaas jirta deegaan noocaas ka jirta hay'adda waanu waxay sidaan bay noo sheegaan waxayaan bay noo sheegaan mashruuc intuu soconayo waqtigu soconayo bay noo sheegaan wax loogu talagalay bay noo sheegaan waanu ku dabagalnaa waanu ku ilaalinaa anigu ma dhahno anaga fulinayne keeno oo hadiya jirtaasi ama shaki bay keentaa ama waxa suuragal ah in la yiraahdo dadkii waxba lama gaarsiin baa dhici karta oo dacaydi wax laga sameeyo hay'aduhu ma idiin soo bandhigaan sidii dadka ula xiriirayaan ama sidii ay uga warqabayaan waxa ay bixinayaan dabagalkiina ka sokow hay'aduhu iskama tagaan kaamka iskamana galaan mana fulin karaan waxaan anagu loogeyn waxaanan ku dabagelin ama waxaanan la socon ama waxaan riboodkooda marka dambe nagu soo celin oo aan intaan ka soo eegno dabagalkan ku sameeyna anagu ku eegno iyo riboodka iyagu noo keenan baan isu eegna marka dambe inay isleeyihiin sax yihiin marka inta badan hay'aduhu 80% waxa oran karaa way u fuliyaan sidii loogu talagalay waa uu mahadsan yahay Cabdikariin Axmed gudoomiyaha hay'adda qaxootiga iyo barakaca qaranka ee Somaliland السلام عليكم هلو كابتن سليمان إبراهيم نبضي كوفر سقالية طبعا أدون قحما حيماتين إذا أركي كريم وايا إذا عطا دقيقة سنسان أنا وحن حرانا هاي سور كي قودن بيي وايا هاي دقيقة استديال أنا أخريو فرينتين نبوه الرئيسة وحن كاتميد خالد وعليا هاي كابتن سليمان شار كيقا عالي وان الآد الله يابله مركو قرقة شوغو يا مركو كباحيو شاقا هدو تغيو أما هدو مساجد كتغبا وحدا مركزتا dar isku mid ah gudaha iyo dibaddaba isaga waa isku mid waaga Khaalidow Kabtan Saleebaan waxa uu ku leeyahay adiga marka ay noqoto gudaha ama dibadda waynu kala dooran karnaa inaynu xidhanno dhar isku mid ah ama dhar kala duwan laakiin hal shay ay tahay inaynu mar walba sameeyno taasi oo ah inaynu afkeena ku daboolno xusulka mar kasta oo aynu qufacayno ama hidhisayno aynu joogno gudaha ama dibaddaba coronavirusku ma aha oo kaliya mid gudaha ama dibadda lagu kala qaado yaa ogaan kara qofka qufacaya ama hindhisaya inuu xanuunkan qabo iyo in kale marna ma ogaan kartid laakiin markaynu ka hadlayno dharka aba waxaan jecelahay markasta oo aan baxayo in aan u labisto sida ugu fiican xataa haddii aan idaacadda tagayo xusuusnow waxa uu Kabtan Saleebaan ku leeyahay هلو رجو باي باي كوفيد 19 fariintan caafimaad waxay kaaga timi BBC Media Action iyadoo qaybka mashruuca isbahaysiga nadaafadda iyo beddelka dabeecadda oo ay taageerayaan xafiiska caawimaadka Ingiriiska iyo Unilever marka laga soo tago hay'adaha caalamiga ah iyo kuwa wadaniga ah ee iska kaashada caawinta dadkan waxaa jira ganacsato isku daya inay gacan ka geystaan xaaladaha nololeed ee dadka danta yar sida hay'adda Hormuud Salaam Foundation oo shirkadda Hormuud iyo bangiga Salaam u qaabilsan taakuleynta bulshada waxaana qadka internetka aan kula hadlay madaxa fulinta hay'addaasi Cabdullaahi Nuur Cismaan runtii xaaladda bini'aadanimo ee ka jirta Soomaaliya markaas waa xaalad mataqaanaa runtii aad iyo aad isaga adag oo u dhaxayso markaas mataqaanaa mushkilad kale mid ka dhalato mataqaanaa xasilooni darrada dagaalada ay dhalinayaan oo abuuraysa barakac baahsan iyo nagaasho la'aan iyo mid ka dhalanayso abaaro
iyo mid ka dhalanayso fatahaado intaba intaasi u dhexaysa waxaana meesha ka maqan roolkii ama kaalintii ay qaban lahayd mataqaanaa dowladda shaqada ama shaqa la-aantu macnaha aad ayay u sarreysaa beerihii ama dalagii si loogu talagalay mataqaanaa uma soo go-aan marka intaas oo marka la isku daro marka inta gargaarka mataqaana u baahan aad ayay u badan yihiin hadda arrintan saameynta uu yeeshay covid-19 ee adduunyada dhan ka dhacday runtii way saameynaysaa arrintaas tusaale dowladda ingiriisku hadda waxay ay dhintay 40% kaalmadii ay siini jirtay deeqaha Soomaaliya marka 40% wax weyn waaye dabcan ingiriiskana waxay kamid yihiin wadamada deeqaha ugu badan siiya Soomaaliya marka haddii wadamada kale ay saa u bixiyaan ama ay yaraato runtii waxay keenaysaa saameyn aad iyo aad weyn dhanka kale arrintan waxay saameynaysay covid uu saameyn ku yeeshay dadka Soomaaliyeed xagga shaqada iyo lacagihii ay dibadda laga soo dirayay oo dalka Soomaaliya income-ka ugu weyn wuxuu ka yimaadaa oo soo gala ama lacagta adag ah waxa la yiraahdo mataqaanaa remittansiga ama xawaalada waa income-ka ugu xooga badan dhaqaalaha soo gala markaasna lacagtaas ayada ah waxay dalka Soomaaliya uga baxdaa sida ay u soo gasho sababtu waxay tahay xaalad aad iyo aad u adag waaye taas waxaa ka dhashay waxa loo yaqaano trade deficit oo ah annaga waxaan soo iibsanayo wax ma iibgeyno sanadkan warbixinii qaramada midoobay soo saartay waxaa lagu sheegay in eber 7 milyan uu kordhay dadka ama ay kordheen dadka u baahan gargaarka bini'aadanimo Soomaaliya guud ahaan ama Soomaalida ka hormuud salaam ahaan maxaa qorshe ah oo idinkaga qorsheysan inaad ku wajahdaan xaaladan kordhaysa waxaan nahay shirkad yar oo ganacsi ah oo ka jirta Soomaaliya duruuftaas adagna ku shaqeynaysa kuna soo shaqeynaysay hay'ad gargaar ah dhaqaale lacag ama wadamo ama dawlad ka soo qaado oo waxa ku bixinayana manihin dawlad ama mataqaanaa nidaam dawli ah oo canshuur qaadanayana manihin marka waxa aan geysanayna ama gargaarka aan fidinayno runtii baahida jirtahay horta ma kaafin karo weligeed mana kaafin doono waa wuxuu galaa kaalmo Soomaalidu hore waxay u mahmaaheen waxa la yiraahdo biyo sacbadaada looga dhargaa wax aadan haysanin marna mataqaanaa baahidaada ma daboolayaan marka mid uu yahay waxay tahay marka dadka Soomaaliyeed inaan mataqaanaa loo wada istaago sida duufahan lagu jiro loo gudbi lahaa isla markaasna in la sameeyo mataqaanaa isku tashi labo in duruufteena xaaladaheennana in anaga maarayno ilaa xad wax soo gali kara waa uu mahadsan yahay Cabdulaahi Nuur madaxa fulinta hay'adda Hormuud Salaam Foundation sidaad hore u soo maqasheen aragtiyaha dadweynihii ka qayb galayay barnaamijka waxa ay ka sinaayeen inay u baahan yihiin in laga bedelo qaabka ay u helaan kaalmooyinka hadda soo gaara haddaba sidee wax looga bedeli karaa maxaase wax ka bedel u baahan weydiimahaas iyo kuwo kale ayaan hordhigay Qaasim Maxamed oo ka howlgala xafiiska hay'adda NRC ee magaalada Beedhabo Deeqa Cabdi oo iyana ka shaqeysa arrimaha gargaarka oo joogta magaalada Beledweyne iyo Dr. Shariif Cismaan oo Muqdisho ku sugan waxaana hadalka ku horeynaya Qaasim oo ka jawaabaya waxay la tahay sababta ay u kordhayaan dadka u baahan kaalmada bini'aadanimo dhibaatada jirta waxay tahay dadka waxaa la rabay inay jirto dawlad awood leh waxyaabooyinka dhacay ay ka hor tagto oo meeshooda tusaale ahaan haddii olaad ay jirtay haddii roob yari ay jirtay oo beerihii aysan wax kasoo go'in wax badan kasoo go'in inay meeshooda ugu tagto ay ka daboosho adeegyadii asaasiga ahaa sida waxbarashada caafimaadka biyaha imkaaniyaadka kale ee nolosha ku tacalluqa inay helaan bay ahayd dabcan ma jirto maanta Soomaali waa naqaanaa meeshaan soo marayno waxa wax laga sugaba waa samafal hay'adaha maaragtay u badan inta hay'adaha caalamiga baa wax laga sugayaa marka wixiina dee Soomaali mudday kusoo jirtay arrimahan gargaarka ay ku tiirsanayd muddo fara badan ee dhaqaalihii wuu yaraaday xaaladahan jiro oo Soomaali muddo maaragtay gacanta lagu haayay waxay keentay in gargaarkii samafalka qaybihiisa kala duwan ay hoos u dhacaan intaan Shariif u gudbin deeqa xaggaaga maxay kula tahay kororkan dadka u baahan gargaarada inay kordhaan dadka barakacayaasha waxay in muddo ay ku jireen barakac walba barakac kale uu sii dhiibaya waqtigan wuu sii fogaanaya ma jirta marka sidoo Qaasim sheegay baahiyahaas oo dhan dawlad oo dabooli karto waxaa jirta in yar oo gargaar bini'aadanimo ah oo markii masiibooyinka ay dhacaan dadkan la gaarsiiyo inta kaleetana ay meeshoodii ay kasii bilaabanayso inay sii barakacaan ama daadadha barakaciyaan ama anyax markii intii ay jirto booyinkan ama maxaa ahayd dhibaatooyinkan dadkiina ay weli doorbidayaan gargaar iyo gacan bini'aadanimo ay sugayaan ayagii ayna doorbideen inay beerahooda qotaan ama ay wax soo saartaan ma filayo in laga baxayo laba arrimood ayaa jira labadaas arrimood
mid waa joogto qaarna waa wax si emergency ku yimaada soomaaliya waxaa ka jira dhibaatooyin joogto ah waxaa ka mid a ammaan darrada waxaa ka mid a oo joogto ah iyadana qaxootiyadii xilligii dagaalada oo qaarkood ay weli qaxooti yihiin oo dibdibin aan loo samaynin ama dhibaatooyinkii ka soo gaaray dagaaladii oo aan la xallin oo marna ay degaan marna ay qaxootinimadoodii ay ku soo noqdaan taas waa midda kale waxay tahay dhacdooyin emergency ah oo ah abaaro dabaylo ama duufaano fatahaado oo iyaguna sanad walba dhaca si emergency ah iyadoo aan la filanaynin marka labadaas arrimood oo midna ay tahay joogto oo nabadgelyo xumadu ay abuurtay iyo saboolnimada midna ay tahay dabaylaha marka taasaa abuurtaan in dabaqada nugul ay abuurmaan iyo qaxooti joogta ah xal ma u aragtaan lacagahaas taleefanka lagu dirayo inay yareyn karto ama ay ka qayb qaadan karto in dadku isku filnaanshiyo gaaraan maadaama lacag kaasha la siinayo lacagaha mobilka la iskugu shubo xaalad mar kasta shaqayso ma aha dabcan waxaa looga talagalay dadka marka masiibooyinka marka ay ku saabsadaan ay kasoo guuraan meelihii ay degnaayeen ay soo lumiyaan wixii ay haysteen oo xoolahooda ay ka mid tahay oo guryaashooda ay ka mid tahay oo hantidooda maguurtada ay ka mid tahay ay soo qaxaan meel ay soo gaaraan in isla markiiba meeshaasna meel suuq ka jiro ama badeeca taalla ay tahay ay wixii noloshii ay u baahnaayeen oo dhan ay ku gataan ujeedka looga talagalay dadka soo barakacay xaaladda haysto maalintaas in la siiyo ay maalintaas ku moodaanayeen waa tahay shariifkan siinayaa si guud dhaqaale ahaan markaan u fiirino doctore maxaa faa'iida maxaase faa'iida darra ay leedahay lacagahan kaashka loo bixinayo aduu soo koobaya faa'iidada sida qaasim uu sheegay dadku haddii ay rabaan in xoogaaga ay heleen ay markaas problemkooda ku xalliyaan haddii caafimaad raashin waxyaabahaas yaryar oo markaas halkooda loo baahan yahay laakiin haddana dhibaatooyinka waxaa ka mid ah in dadka lacagtaas friiga ah intay la qabsadaan ay u noqdaanba yani ay caado ka dhigtaan dadku marka ay la qabsadaan waxay bidaa in ay shaqada iska daayaan oo lacagtaas friiga sidii ay ku heli lahaayeen ay raadiyaan oo ay ka daba wareegaan oo ay waqti ku lumiyaan oo shaqooyin kale ay diidaan dhibaato ayay leedahay marka oo mujtamac dhan uu barto lacagtaas yani wax loogu talagalay ma aha weliba waxa loogu talagalay waxa waaye haddii aad income kale oo aad heli karto inaad tan ka maaranto oo qof kaaliita aad u dhaafto laakiin inaad ka dhigato yani ila dhaqaale oo joogto ah oo aad uga maaranto shaqadii marna ma aha deeqa kaalmada tooska ah ee dadka la siiyo maxaa lagu bedeli karaa aniga waxaan isleeyahay waxaa looga gudbi karaa in loo maalgeliyo beerahoodii oo weliba si ay beerihii u tabcadaan usoo goostaan iyo xoolihii in lagu maalgeliyo oo lagu dhaqaaliyo intii hadda covidka uu dhacay waxaa gaabis ku yimid gargaaradii bini'aadanimo ee Soomaaliya soo gaarayeen oo hoos u dhac ku yimid sida warbixinta qaramada midoobay ee xusayso dhammaan aan wada ognahay gaabiskaas ku yimid ama firaaqadaas xaggas ka timid maxaa laga baran karaa si isbedel loo helo waxaa laga baran karaa in dadka Soomaalida isku tiirsanaadaan in dhaqaalaha la helo oo yar ama wadan gudihiisa canshuurha lagu helo ama deeqa noogu soo gaarto in maaragtay la si fiican loo maareeyo loo isticmaalo mudnaanshaha horta gaabisa ku yimid sax waaye gargaarka bini'aadanimada ee qaramada midoobay ay bixin jireen waxaa ka arkaysaa markaad tagtid meelihii wax lagu bixin jiray ama kaamilkii ama dadyoogii markaa la kulantid marka dadkaas waxaa cashir u noqon karo sidaas lamida inuu yimaado cudurro kaleeto oo sida covid-19 oo kaleeto oo gargaarka bini'aadanimada joojin karo ama waxyaabo kaleeto marka si looga gudbo dadkaas in marka horeeto caawimaada loo sameynayo ay noqoto mid u noqoto mid oo ama dhankii beeraha ama dhankii xoolaha hadhoodiina bedelkooda u geli karto si ay uga maarmaan gargaarka bini'aadanimada waa ay mahadsan yihiin deeqo cabdi qaasim maxamed iyo doctor shariif oo barnaamijka nagala qaybgalayay intaa ayaanu kusoo gabagabeynayaa tusmada nolosha oo ay idiin soo diyaarisay BBC Media Action oo kaashanaysa hay'adda Ground Truth Solution GTS tan iyo kulan dambe Fardoso Sheekh Cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo Fardoso aad bay u mahadsan tahay ana waxaan intaa kusoo gabagabeynayaa guud ahaan barnaamijkii dunida iyo maanta tan iyo kulankeena xiga anigoo ah Kawthar Maxamed Cabdullaahi oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo